Assalaamu calaykum waraxmatullah. Shalay ayaa waxaan ka hadlay tarmuusyada ama falaasyada iyo khatarta ay leedahay jebintoodu. Haddii aadan arag halkan ka fiiri, maantana waxaan idiin hayaa meelaha aan xogta ka soo aruuriyey, maadaama ay dadka qaybtooda u arkeen inay tahay waxaan iska alifay. Sidii aan horay u sheegay, horta marka hore waxaa la isku waafaqsan yahay in macdanta ku jirta falaasyada aysan khatar lahayn marka shaaha lagu cabbayo falaasta, maadaama aysan si toos ah ugu gudbayn oo ay dhalo u dhaxayso. Waxa ay khatari ka dhalan kartaa marka la jebiyo falaasta oo macdantaasi bannaanka u soo baxdo, sida ay dad badani maalmahan baraha bulshada ka samaynayeen. Waa waxaan u lahaa dadka jebinayay falaasta ayaa arrin ka sii daran samaynayay. Haddaba waxaa jira waddamo laga mamnuucay macdantaas iyo waddamo aan laga mamnuucin. Waddamada laga mamnuucay waxa ay sameeyaan inay falaasyada marka ay ogaadaan inay waddankooda soo gashay ay aruuriyaan oo dukaamada iibinaya ka qaadaan. Qaybtii shalay ayaan uga hadlay sida ay dhibaatada u keeni karto macdantan oo xogteeda hadda ka hadli maayo, balse waxaan ka hadlayaa meelaha aan xogtan ka soo aruuriyey si dadku ugu wada qanco oo u ogaadaan in falaasta jebinteedu tahay khatarta ugu weyn. Page-kan la dhaho Asbestos Global oo dadka uga diga alaabaha ay ku jirto macdantaas ayaa maqaalkan cinwaan looga dhigay asbestoska falaaska ku jirta oo ka soo fatahmaysa Asia. Maqaalkan ayaa waxaa lagu sheegay in falaasyada ay maadadani ku jirto ay ku soo qulqulayaan waddamada Yurub ee laga mamnuucay macdantaas. Maqaalkaas ayaa waxa uu soo qaatay tarmuusyo macdantaasi ku jirto oo ay dowladaha Yurub qaybtood ay qabteen oo suuqa ka saareen. Falaasyadaas la qabtay ayaa badankood laga keenay waddanka Shiinaha. Maqaalkan kale ayaa isaguna waxa lagu tilmaamay in waddanka UK lagu qabtay falaasyo Shiinaha laga keenay oo macdantaasi ku jirto, iyaga oo dadka looga digay inay isticmaalaan oo hadday falaasta ka shakiyaan ay la soo xiriiraan hay'adaha arrimahaas baara. Dad badan ayaa iyaguna u qaatay in arrintaani ay Soomaalida un khaas ku tahay. Waddamada Khaliijka ayaa iyaguna arrintan walwal ka qaba. Dowladaha mamnuucay macdantaas ayaa waxaa ka mid ah Cumaan oo wargeysyadeedu soo qoreen sanadkii hore in hay'adda tayadhowrka ama ilaalinta macmiilka ee ximaayatul mustahlik loo yaqaan ay mamnuucday in la soo dhoofsado falaasyada ay macdantaasi ku jirto, waxaana ay hay'addaasi dukaamada ka aruurisay falaasyo laga helay macdantaas. Waxaa kaloo YouTube-ka ku jira documentary English ah oo af Carabi loo tarjumay oo guud ahaan macdantan khatarteeda looga hadlay, iyada oo la soo qaatay falaasyada ay ku jirto macdantaas. Waxaana ku arkay waxa ay kiniiniga Soomaalidu ku sheegaysay marka ay jajabiyaan falaasta oo macdantaas lagu tilmaamayay inay tahay. Dad ayaa waxay lahaayeen waxa ku jira tarmuusyada waa suuf, laakiin macdantan ayaa waxa ay u eg tahay suufka. Marka dadka waxaan kula talin lahaa yaan la jajabin falaasyada, sababtoo ah qaybtood ayaa waxa ku jirta macdanta la ogaaday haddii bannaanka ay u soo baxdo inay khatar keeni karto. Haddaba macdanta asbestoska ayaa adduunka badankiis laga mamnuucay, laakiin maadaama ay khatar keeni karto, waa jeclaan lahaa in waddankeena iyo dunida oo dhanba laga mamnuuco. Laakiin maadaama aan nahay dowlad taag daran, waxyaalo ka khatarsan macdantaas ayaaba waddankeena soo gala, maadaama uusan waddanku haysan tayadhowr kontaroola tayada waxa waddanka soo galaya. Haddaba fadlan yaan falaasyada la jajabin, khatar ayayna keeni kartaa. Haddii uusan falaas ku jabnayn oo shaax lagu shubto, wax dhibaato ah ma keenayo, laakiin macdantaasi markii bannaanka loo soo saaro ayay khatar keeni kartaa. Meelaha aan xogta ka soo aruuriyey oo isugu jira Carabi iyo English commentiga hoos ayaan ku soo qori. Fadlan share garay oo gaarsii cidda ay anfacayso, like-na saar, subscribe-na samay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.